السلام عليكم baadigob isbedelkaaga haddaba walaalkaygii oo waad murugoota oo aad walbahaarta adigoo rajo dhigay waxaad la joogtaa dadkaagii haddana waxaad dareemaysaa inaad cilciirsi la joogto waad niyad jabtay oo aad isdhiibtay oo aad warwar iyo wareer qaaday adigoo ka daalay dhibaatadan ku haysata hamrugoon hana isciilin hana isdhiibin ilmada iska tir oo eeg hareerahaaga waxaa ka dhacaya waxaa hubaal ah inaad arki doonto dadka liita oo u baahan gacantaada kuna jira xaaladahaada tobanlaabkeed ku cibro qaado waxa qeyrkaa in badan oo ka mid ah ku dhacay noloshoodiina god madow ku riday adiga keligaa waxaa ku haysta dhibaato aan cid kale kula arkayn ama kula dareemayn ama si aan ahaynba wax muuqdo ee aad ku xabisi karto qalbigaaga laakiin bal eeg imase qeyrkaa ayaa madaafiic lala dhacayaa maalin walba gaajo iyo haraad u dhimanaya qaxooti ah noloshoodii cakiran tahay kana baxday farahooda imase badaha ku daadanaya imase ahelkoodii guryo ku gubteen imase ayay adduunyadu keligood ku baxsatay iyagoo aad u daayar haddana faraxsan oo la tacaalaya nolosha ayagoo dhoola caddeynaya qalbigoodana ka guuxayso rajo dheer ah samirna huwaday han iyo himilo dheeraad ahna leh dhib kasta oo ku soo wajaha ilaahay ayaa kugu imtixaanaya inaad u noqotona tahay dhankiisa isagaa kaa samata bixin karaa ee gacmaha kor ugu taag adigoo u oonaya una cabanaya intii aad cidlo ka barooran lahayd niyadda ka saarin inay tani tahay daartii imtixaanka noloshuna gaaban tahay raaxaduna dambayso ee dhibaatadu yay ku ilowsiinin jannadii aad ku iloobaysay dhammaan dhibaatadii ku soo martay oo dhan harajo dhigin waad guulaysanaysaa haquusan heer baad gaaraysaa quustu maaha astaanta qofka islaamka ah ka oo ilmada iska tir wax walba xal bay leeyihiin xusuuso dhibaatadii nebi moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ku dhici jirtay isagoo ah nebi ilaahay doortay intaasna cashirku ugu filan samirku waa shidaalka rajada haddaba ballanteenu waa isbeddelka nolosha iyo guul waarta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu